السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلامتي أصحاب تقييمتي قدرنت مدن ومeel kastoo aad dunida ka joogto mar kale iyo barnaamijyadeena arrimaha Bollywoodka halka aad ka daawanaysaan saxafi films haddaba barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa jilaaga caanka ah ee aad wada garanaysaan King of Bollywood Shah Rukh Khan waxaynu soo qaadanaynaa waxyaabihii carqalada amaba dhibaatada ku noqday nolosha Shah Rukh Khan inta uu dunida korkeeda saarnaa qodobka koowaad ee soo qaadanayna waxay tahay ayeydii aabba dhashay ayaa waxay jilaagan u bixisay markuu dhashay amaba loogu wanqalay magaca Cabdiraxmaan haddaba yeeshee magacaasi Cabdiraxmaan goorma ayaa la bedelay isaga abiya ayaa bedelay waxaana uu sheegay in magacaasi Cabdiraxmaan dhanka fanka amaba entertainmentiga en film samaynta uu ku habboonayn sidaa darteed magaca ayaa aabihii ka bedelay waxaana uu bixiyay Shah Rukh Khan magacaasi laga bedelay Shah Rukh Khan mar uu ka hadlay waxa uu sheegay nasiibka waxa uu ku jiray buu yiri magacaan Shah Rukh Khan oo aniga aabay ii bixiyay ayeeyday waxay ii bixisay buu yiri Cabdiraxmaan waa magac wanaagsan buu yiri oo ma diidani laakiin markay noqoto aan nasiibka dhankiisa aan eego buu yiri Cabdiraxmaan iyo Shah Rukh Khan ayaa aad iyo aad u nasiib badan buu yiri waana sababta aan oran karo buu yiri guulaha ugu badan ee noloshayda aan gaaray waxaa sabab u ah magaca aniga aabay uu iga dhintay qodobada kale ee la yaab kale oo markaad nolosha Shah Rukh Khan maqashaan aad soo xasuusanaysaa waxaa kamid ah actor-kan yaraantiisa waqtigii iskuulka u dhigan jiray oo uu kamid ahaa dhalinyarada yararka ee markaasi tiyaatarada dadka ka mid ah masraxa ruwaayada masraxeedka sameeya ayaa waxa uu qabay cudurka loo yaqaan suuxdinta hayeeshee macallimadii ayaa waxay sheegtay in aysan u rabin in maantay ardada jilinka ama tiyaatarka masraxa ruwaayada kusoo dhigaysa aysan qayb uusan ka noqon doonin jilaaga caanka Shah Rukh Khan hayeeshee Shah Rukh Khan arrintaasi waa uu ka biyadiiday markii uu aragtay in uu ku madax adeegayaa mid ardada kamid ah waxa uu yiri macallimad dhib male iska daabiiro ha aado goobtan ha tago dhaqan iyo hidda waxaa jira dadkaasi India laga isticmaalo oo qofka markaasi suuxdinta qaba ama uu suuxo sanka ayaa loo saaraa maqaar macallimada wuxuu ku yiri macallin Shah Rukh Khan xaaladiisu way xun tahay waana sidaa sheegtay keen kabahaaga kab kamid ah adiga wata kaba maazam oo maqaar ka samaysan macallimadaasi maalinta waxay kaga baxday baa la yiri iskoolka iyadoo hal kab sidata waxaana sababa baa la yiri ardaygaasi saaxiibada ay ahaayeen Shah Rukh Khan oo ugu sheekay macallimada inuu Shah Rukh Khan suuxay waxyaabahaasina waa waxyaabo keeni kara baa la yiri in Shah Rukh Khan uusan ku dhiiranin fanka laakiin uma uusan joojin oo marxaladaasi waa uu ka gudbay ta saddexaad aynu soo qaadayna waxaa kamid ah Gauri Khan waa marwada u dhaxda isaga marwadaasi isku iskool ayay ahaayeen Shah Rukh Khan yaraantiisii ayuu aad u jeclaa waxyaabaha la yaab kale ee nolosha kusoo maray jilaagan caanka ah Shah Rukh Khan King of Bollywood waxaa kamid ah in uu ahaa madadaaliye waqtigu arko in iyada iyo hablo kale ama gabdhaha kale markaas isku levelkiin ay wada joogaan oo uu majaajilan jiray uu ka qosin jiray heesaha filmaanta ku jira ayuu qaadi jiray isagoo markaas raba inuu ku kasbado amaba ku raali gareeyo Gauri Khan waxay tiri mar alaaliyi markuu aniga oo hablo la joogo ama dhalinyarada kale la joogo arko waxa uu bilaabi jiray bay tiri in uu sheekeeyo waliba kaftan aad iyo aad u qurux badan kaftankaasi oo markaasi uu rabay inuu aniga igu soo jiito anigana waa aan dareensanahay bay tiri Gauri Khan aadna waan ugu qanacsanahay saygayga calafna waan isu yeelnay waxyaabaha kale la yaab kale waxaa kamid ah markii uu yimid magaalada Mumbai oo xarunta hoyga ama fanka shirkadda Bollywoodka oo uu damcay inuu halkaasi filmaan ku sameeyo Shah Rukh Khan ujeedkiisu waxa inuu 3 ilaa 4 film meeshaasi ku duubo kadibna uu dib ugu laabto magaalada Delhi halkaasi oo deegaanka uu ka soo jeedo jilaaga caanka ah Shah Rukh Khan hooyadii ayaa waqtigaasi goobtaasi ku sugneed oo ay xanuunsanayd ujeedada ugu daran ee uu markaasi ugu dhibka badan ee markaasi uu xaaladiisa degdeg ka dhigaysay inuu dib u laabasho sameeyo hooyadii ayay ahayd oo xanuunsanayd oo cudurka kansarka markaasi qabtay ugu dambeyn uu geeriyootay waxyaabaha kale la yaab kale waxaa kamid ah Shah Rukh Khan markii uu soo saaray filimkiisii koowaad ee Dewana waxaa ka hadlay oo arrintaasi si waliba dad badan ay la yaabeen uga jawaabay Gauri Khan oo marwada isaga uu qabo waxaana tiri filimkiisii koowaad ee Dewana markii uu soo saaray bay tiri oo la wada daawaday aniga dadkii ku farxay kuma aanan jirin bay tiri aad iyo aad baan uga naxay waayo ma aanan jeclaysan bay tiri ninka aniga nolosha ila wadaagay inuu entertainmentigan iyo fankan ama jilinkan uu qayb ka noqdo waan diidanaa bay tiri laakiin fikirkaas muddo kadib ayaan bedelay oo ma jirto bay tiri naag jecel ninkeeda in lala wadaago dhanka hinaaskana waad wada garanaysaan bay tiri waxaan ahay maamo aad iyo aad u hinaas amaba maseer badan haddaba daawadayaal dhacdooyinka amaba qisooyinkii la yaabka lahaa ee soo wajahay jilaagan caanka ee Shah Rukh Khan intii uu fanka ku jiray intii uu soo bilaabayba intaas ayaynu ku hakinaynaa shantaas qodob ayaynu ku hakinaynaa balse barnaamijkan waxa uu noqon doonaa haddii Allah uu dil raali ka noqdo mid taxana ka ah
saxafi films oo alaab aad uga barateen dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee arrimaha Bollywoodka. Haddaba daawade haddaadan hore uga mid ahayn bahda ku xiran channelkan saxafi films isku day channelka inaad subscribe inoo saarto gambaleelka aad furto si barnaamijyada markay wada soo galaan bay si toos ah kuugu soo dhacaan like-na barnaamijka ayay dhiirigelin u tahay fikirka aad ka qabtid iyo waxyaabaha aad jeceshiina qaybta hoose ayaad inagula wadaagi kartaan inagoo isku duuban oo ah bahda saxafina intaynu barnaamijkan midka xiga kulmayno waxaynu idinkaga tegaynaa dhammaantayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu